السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي لمانتينا ميل والبعد وذي جوكتان maanta waxaad soo bandhigaa qaybta shanaad oo warar laga yaabo inaad waligaa maqlin ila daawo. ninka ahaa jiray boqorka Yugoslavia Alexander Kowaad wuxuu ka cabsan jiray maalinta Talaadada. macnaha maalinta Talaada meel aan u bixi jiray. wuxuu ka cabsan jiray in la dilo mise in wax ku dhaco. waayo saddex qof oo familkiisa ka tirsan waxa la dilay maalinta Talaada ay tahay. sanooyin lagu soo wareegtay maalinta Talaada ayaa haddana la martiqaaday. wuu fikray wuxuu isdhahay wax ma dhac doona oo iska aada. martiqaadkii ayuu aaday waana la dilay. wiilkan uu jeediyay markay ahayd da'diisa 17 sano wuxuu sameeyay application la yiraahdo Samly. application kaasna wuxuu ahaa application lagu daawado wararka مثلا يوزك application كي عانوا نخذي شركوين بدن ayaa dalbatay inay ka gadato laakiin ugu dambeyntii waxa gadatay shirkadda Yahoo waxayna ku gadatay $30 milyan. taasna waxay ka dhigtay wiilka qofka ugu lacag badan adduunka oo da'diisa ka yar 18 sano. iPhone hadii lagu sameeyo lahaa Mareykanka qiimihiisu wuxuu gaari lahaa $2,000 laakiin waxa lagu sameeyaa Shiinaha. Mareykanka waxa lagu sameeyaa design kali. iPhone walban hada fiirisid gadaal waxa uu qoran design California. website ka Google hada ku qortid kelmadan waxa ku soo baxayo website oo kala gedisan. kelmadda xataa waxay tahay Google oo la gidiyay. waagii hore Yurub dhaqida oo ku yareed waxay ka baqi jireen dharka inaa ka go'o. qabayskood xataa wuu yaraa ilaa uu ka imaaday in la yiraahdo Mohammed Bath oo ka imaaday dalka Hindiya. wuxuuna baray dhaqida iyo unsiga iyo waxyaabaha carcarfaya. markaas ay waxay dhaheen maadaama aad waxaan na bartay qolkan oo lagu qabaysay mise dharka lagu dhaqdo waxaan u bixinaynaa qolka Bath. saas ay ku imaatay bathroom. hooyada ugu caruur badan adduunka oo taariikhda qoray waana ku dhashatay dalka Ruusiya oo magaceedu yahay Valentina Vasileva. 40 sano gudaheed waxay dhashay 69 caruur. 16 mar min 2 mitaano, 7 mar min 3 mitaano, 4 mar min 4 mitaano iyo 27 mar oo ay dhashay hal. intaas dhan waxay u dhashay hal nin. markay dhimatayna ninkeed naakal uu guursaday waxay u dhashay 18 caruur. nin la dhax jiray Arnold oo u dhashay dalka Austria wuxuu ka cabsan jiray lambarka 13. waa jiray lagu magacaabo triskaidika phobia. lambarka 13 aad ayuu ugu cabsan jiray xitaa wuxuu u bixiyay 12A. macnaha markuu wax xisaabayo wuxuu dhahay jiray 11 12 a 14. da'diisa markay gaartay 17 wuxuu dhahay 7 iyo 6 hadii isku daro waxay noqonayeen 12A. wuxuuna ka wadaa 13. marka wuxuu dhahay maanta waxa ii soo socota musiibo waa inaan guriga aan ka bixin. guriga ayaan iska joogaa intii wax igu dhaci lahaa. gurigiisu fadhiistay maanta dhan gurigiisu joogi banaan dhan ma bixin. meeshuu ku dhintay waxayna ahayd maalin Jimco. maanta gaalada way ka cabsadaan taariikhda 13 haday ku soo aado maalinta Jimcada. xataa waxa jira filim la yiraahdo 13 Friday. wiil oo u dhashay dalka Ciraaq oo la yiraahdo Sam wuxuu ku noolaa dalka Australia wuxuuna qaadan jiray lacagta oo ceerta. muddo kadib shirkadu yeeshtay lacag uu sameystay. dawladda ayuu aaday sheek ayuu u qoray wuxuu dhahay intii oo lacag aan idinka qaatay waa tana. aad iyo aad ayuu mahadsantihiin. nin la yiraahdo Jeremy Clark wuxuu ahaa laxmiista oo laxmiista oo music. wuxuu go'aansaday inuu isdilo. wuxuu dhahay shilinkana kor u tuuraa dhinacan haduu u dhaca badda ayuu isku ridaa. dhinac kale haduu u dhacana waa islaalmina. shilinkii ayuu kor u tuuray dhinacan ma u dhicin dhinac kalena ma u dhicin. saan uu istaagay wuu xanaaqay xabadu isku dilay. waan dhameeyay. انت سو بندق maanta waxaan rajaynayaa ka faa'iideen share like subscribe ilaawin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.